Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada caruusad bila aduga barateen qurxinta diyaarinta aroosada. Maanta waxaan halkan doonaya inaan kala hadlo maadaama dad badan hablo badan ka cabanayaan indhaha hoostooda madowaaday amaba indhaha hoostooda soo yar buuran, yacni barar sameeyey, indhaha hoostooda barar sameeyey iyo indhaha madowga gala hareeraheeda, yacni korkeeda iyo hoosteedaba. madowgaasna waxyaabo badan ayaa keena, ay ka mid tahay qofku markuu soo jeed badan sameeyo kale, qofku markuu maxeeday in badan soo jeeda way ka timaadaa, iyo qofku markuu daalan yahay daal badan hayo waa dadku yidhaahdaan ma daalan tahay maanta oo indhihii baa ku madoobaaday. Marka indhuhu way madoobaadaan waana bararaan qofku markuu daalan yahay. Marka maanta waxaan idiin sheegayaa laba wax oo fudud oo kale aad gurigiina ka heli kartaan, haddiidan gurigiina ku haysan aad suuqyada ka heli kartaan, oo labaduba biyaan indhaha hoostooda madowga. koobaad waxa waa vitamin E, oo vitamin E-ga caagada yar, kadibna saliidiisa weeyaan, in yar baad kusoo qaadaysaa fartaada, indhaha hoostooda ayaad marinaysaa habeenkii markaad seexanayso ama markaad soo jeedo, yacni indhaha iska gelinin laakiin indhaha hoostooda ayaad marinaysaa. haddii aad ahayn dadka habeenkii indhaha marmara deerto waa inaad ka ilaalisaa indhaha inaad marmarto adigoo wax kuu marsan yihiin, kareemna ha ahaadee. marka indhaha hoostooda kaasaad marinaysaa ayaama gudaheedna uu kaaga biinaya insha allah. mahadsantiin. ka labaad aynu u nimaadno. ka labaad waxa weeyaan saliidan sayt loo silxilo ama sweet almond oil baa la yidhaahdaa. waxaad ka helaysaan suuqyada, dadka inta Hargeysa joogta waxay ka helayaan suuqa Hargeysa, ka helayaan shoobilayaasha, amaba waxay ka helaysaan baasli lafteeda. saliidan anigu waxaan odhan karaa number 1 waa shayga ugu fiican ee indhaha hoostooda baabi'iya. anu shakhsiyanna waataan isticmaalo, marka saliidan ayaa number 1 ah. yani waxyaabo badan waan idiin sheegi karaa, waan idiin sheegi doonaa. waxyaabahaas way fara badan yihiin, qof walbaaba kuu helayo unbuu isticmaalayaa. qofkii laba helayaa labadaba uu isticmaali karaa. waxyaabo dabiiciya xataa jiro inoo soo socda. horta saliidan aan ka baxo, saliida weeye sayt loo silxilo. muhiimad maaha inay galkeeda san u ekaado, saliida caagado badan oo kala duwan baa lagu shubi karaa, laakiin magacu waa kaas sayt loo silxilo ama sweet almond oil baa la yidhaahdaa. marka waad mahadsantihiin. saliidan soo iibsada, indhaha hoostooda baad aayar marinaysaa, kadibna waad iska seexanaysaa, ayaama gudahood madowgu kaa ba'ayaa, indhaha hoostooda ku buurnaya oo kaa ba'ayaan. ta saddexaad aan maanta idiin wada waxa weeyaan green tea-ga. shaha green tea-ga markaad ka cabtood ka dhammaysato, inta yare bacda yar ku jirta intaad ka tuujiso, kadibna indhahaaga saar, indhaha hoostooda, indhaha gebigoodaba intaad saarto iska jiifso muddo ku yardaa, deetana farqi weyn ayaad arki doontaa. ta afraad aan idiin wadaa waxa weeye iyadna waxa weeye khiyaarka oo inta saa u gogoyso sida imka gabadha sawirkeeda ka muuqato oo kale ayaad labada indhood saaraysaa, waad iskaga jiifsanaysaa muddo ayaad iyadana sidaa ku ahaanaysaa. ta shanaad waxa weeyaan baraf haddaad hayso, khaasatan weliba indhaha dadku bararsan yihiin, indhaha hoostoodu barafku xoog buu ugu fiican yahay. marka barafka intaad isagoo saasoo kale u burbuuran ayaad indhaha hoostooda saa u marinaysaa, ood indhaha hoostooda hareerahooda aad saa u marinaysaa. ta lixaad maanta ka hadlayna waxa weeyadna baradhada intaad sidaa u gogoyso ayaad indhaha saaraysaa. haddaad doontana si yaroo dhuudhuuban, haddii xagga oo sukadeed aad ka cabansid, si yaroo dhuudhuuban ayaad u saaraysaa indhaha hoostooda, waad iskaga yara jiifsanaysaa muddo. ta toddobaad waxa weeyaan malqacadaas waxaad sameynaysaa 2 malqacadood kuwa macdanka ah, waxaad gelinaysaa talaagada ha kuugu jirto. markaad shaqo ka timaado ama markaad daalanta dabadda ka timaado unbaad soo qaadaysaa indhaha hoostooda, unbaad marinaysaa, indhahaad saa ugu qabanaysaa gebigoodaba. marka maasha allah way biinaysaa.
marka daalka indhaha waliba bararka qofka indhuhu bararsan yihiin malqacad xoog bay ugu fiican tahay waana easy wax yaro fudud talaagada kugu jiraysaa markaad aad shaqo ka timaado ama adoo kulul ayaad soo qaadaysaa indhaha ayuunba saa ugu kubaynaysaa ood saa u saarsaaraysaa malqacadii. ta sagaalaad waxa weeyaan maaskiyada indhaha hoostooda ee lagu iibiyo suuqyada ood soo iibsatid iyagoo diyaarsan kadibna iyagoo waxa ku jiraan bac yaryar oo malgaraysan bay ku jiraan bacdan baad ka furaysaa indhaha hoostoodun baad saa u saarsaaraysaa. maaskiyada marka indhaha hoostooda way kala duwan yihiin mid dahabiyaa jira mid madowaa jira mid cadaan baa jira intuba markaa way u fiican yihiin indhaha hoostoodan baad saaraysaa waxaas ku qoosqoostay waxbaa sidii waxba uma baahanaysid. ta tobnaad waxa weeyaan biyaha maa u wardiga ama rose waterka oo intaad qaboojiso iyagoo barafa aad indhaha hoostooda mariso iyaga qudhooda waxay beenayaan daalkii iyo tacabkii indhaha hoostooda bararkii madowgii wixii oo dhan ayay kaa beenayaan. marka waxaan jeclaa insha allah inaad ka faa'iideen aad baa u mahadsantihiin fadlan subscribe ha ilaabina si aad ula socotaan casharada cusub like and share asxaabtaadan u faa'iide u share garee mahadsantihiin.